ciyaaraha siyaasadda ee cabduqaadir booska ku soo dhawaada daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbood joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeennii kaftanka isboortiska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ah universal barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo cabduqaadir boos ah ka bogasho wacan guddiga dishibliinka FIFA ayaa baaraya dhowr laacib oo samafalkooda sawir kula wadaagay baraha bulshada kabtanka kooxda Banaadir Yuusuf Jimcaale Madaale ayaa ka mid ah xidigii axsaankooda ku muujiya foto taasoo jabinaysa qodobka 8 ee xeerka kubadda cagta laacibkan ayaa sadaqadiisa hakiya hadii howlwadeennadiisu iska soo ilaawaan kaamirada sawirka garabkii hore ee reer Kaaran ayaa WhatsApp-ka xitaa saartay sawir nooca ah maadaama uu WhatsApp-ka kala hadlo macallin Farmaajo si uu u tuso waxqabadka naadigiisa ama seefta uga badbaado tababari hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo dhaariyay xubin ka mid ah kooxda baarlamaanka diyeeshii hore ee xulkeena ayaa dhaarintan u arka boos celis sharcigaas oo dhaqan galay intii uu xilka hayay qabya ninkeeda dhameystira ayaa haatan buuxiyay kooxdii baarlamaanka oo qabya ka ahayd hal xubin FIFA ayaa baaraysa guddiga abaaraha Somaliland kuwaas oo gadoomay lacag dhan 3 milyan oo dollar inaanu jirin saxaafad loo soo bandhigay iyo sida dakhliga loo maareeyay ayaa dhalisay shakiga FIFA sidoo kale wali ma cadda cid ka tirsan guddigaasi oo qalab isboortis geysay deegaanka kabtanka kooxda 90 digriisa ee Al Sunna Sheikh Shaakir ayaa noqon doona film soo saaraha filimka cusub ee Arshaakir Igeya filimkaas oo markii ugu horeysay bishii hore si dhab ah looga daawaday baahiyaha Facebook koox ku dhow Sheikha ayaa sameeyay video wiil yar uu ku dhahayo Arshaakir Igeya deetana Sheikha uu la soo galay sawir filimkaas ayaa saqarxi kara hadii daafacaani digriga aaminsan uu ka soo muuqdo xukuumadda cusub oo ah sababta filimkan loo curiyay FA-ga Soomaaliya ayaa baaraya qaar ka mid ah taageerayaasha tababare Farmaajo kuwaas oo qaran dumis u arka wargeyskii ka faalooda shaxda macalinkan xorriyadda hadalka iyo xuquuqda ciyaaraha ayaa gabi ahaanba fasaxaya in laga falaqoon karo tababaro walba oo leelinaya qaranka taageerayaashan badsaday cabista enerjiga keena tamarta ayaa waxoogaa leh qaab ciyaareedkii kooxda maxaakiinta kuwa oo haddii aad ku tiraa baladkan u socdaa u qaadanaya inaad baydhabo rabto xidiga Iidla Yare ayaa boorsooyinkiisa isaga qaatay aqalkiisa markii ay sare u kaceen xanta ku aadan in kubadaha tenniska wada ciyaareen laacibada 1.9 mitir ah ee Iqra Yare laacibkan cidii Yurub ka timaada uu haysta muqallas wadi kara ayaa aaminsan in noloshiisa uu u hibeeyay qof caan ah way araga u soo ciyaaray kooxdii xoogsatada dekada Boosaaso ayaa fasaqi kara heshiiska xidigtaas hadii uu indhaha saaro laacibad ka timid Malta ama Hungary oo isagu u ah Yurubta sare sida dad shaah lacab inoo xaqiijiyeen markana xubinteennii wargeysyada laacibka Nimcaan Hilaac ayaa isaga baxay kooxda xidigaha geeska maadaama in Cabdimaalig uu la aalmiitay uga wacan tahay si joogista xeebta Lido miisaan ku yaala aeroboortka Brussels ayaa ciladay ku timid DJ Subeer iyo Nastaxa Indo ayaa ahaa shakhsiyaadkii ugu dambeeyay ee isticmaalay lejankii hore ee Xasan Daahir Awees ayaa wali ku adkeysanaya in qaab ciyaareedkiisii taakalka u badnaa uu ahaa mid saxan sida laga dheehan karay waraysi dhawaan la yeeshay Universal TV ayaad wali inaga daawanaysaan kooxda Daraawiishta Puntland ayaa ku dhow in hogaanka u qabtaan League 1ka Puntland taasoo daaqada tusin karta macallin gaas oo jeebka u ritay mushaarkii laacibiintii 90ka u barbareeyay Galmudug
xidigta Farxiyo Fiska ayaa ka dalbanaysa Bashiir Hanuuniye inuu kor u qaado mushaarkeeda iyadoo haddii uu diido boos ka daydayanaysa xirta Xasan Cali Qeere oo gacmo furan ula diyaar ah tolka.